بوليسك قاتما كقيب قادنا هيسا وقادا ابتيا شيء واي لا ندارنمو إيدي كرتل مجرد هاي هذا مع قضب حاكو قليها يا حرس حاكو قليها سودو هذا فضلا يوتيوب كدا كو عصبتها سبسكرايب نوصار مقال كان لايك نوصار وانا ما سنتين وفرحيه كبيره oo ku soo kala qabatay fanaanka weyn ee Nimcaan Hilaac farxiye kabayre sidoo kale iyada lafteeda waa fanaanad Soomaaliyeed oo caan ah oo wada naqaana farxiye kabayre waa iyadan dambe sidii fanaan ay u ahayd waxay isku bedelaysaa in ay noqoto micer ama maxaa dadka mic u qaato TikTok dadka ku soo dhago ay isku bedelaysaa fanaanadii sharafta lahayd ee meel walba laga soo dhaweyn jiray showyadeeda Europe iyo America iyo Australia iyo Canada iyo North America oo dhanba meel walba iyo waliba Africa laga soo dhaweynayay ayaa waxay isku bedelaysaa in ay la xifaaltanto oo maanta wax walba ee faraha la gasho isbuucii la soo dhaafay waxay ishayeen Naciimo Joker ilka casaqays xaaskiisana ah Naciimo Joker sanad walba horta way isdagaalaan waxay isku dagaalaan iyada gardarro iyo aflagaado ee bilowdo ama daandaansi iyo wax caynka ah haddaba farxi kabayre waxaa cadaatay in ruux walba ee iyada faraha la gasho oo dagaalka iyada raadsato oo dadka hadhow inta iyada faraha la gasho ay dhaado waa li maagay oo kan baali dhahayo sidan waay markii laga soo dhamaaday Naciimo Joker isbuuciye ka hor hadda waxay kuleetiga ku dhagan tahay fanaanka weyn ee Nimcaan Hilaac Nimcaan Hilaac waxay ku eedeynaysaa maxaad u taageertay politically ama siyaasad ahaan haday noqoto ama maxaa la dhahay shay ikhtiyaar haday noqoto qofka ikhtiyaarkiisa isaga leh wuxuu doono sameyn karaa hadduu doono fanka dhan intuu ka baxayo siyaasad ku biiri karaa siyaasi xildhibaan iyo waxa la isii u dhigi karaa maxay ka ogtahay inuu waxyaabaha qalqalsanayo waa su'aal qofka Joyce buu leeyahay cid uu rabo taageeri karaa adiga waxa aad taageersantahay cid kugu heysata malaha Soomaaliin maanta qof isqasbi karta malaha qof kale u dhigteed garan karana malaha adiga oo fanaan ah oo waxaan howlahan laga baranin oo ay ahayd maanta in ay adduunka ku dawaafto fanaaniinta qeyrka ah ee showyada loo qabanayo ka mid noqoto kiin jaamacu Hargeysa lagu soo dhaweeyay maalin hore Sultan Seyraar oo meel walba asagana looga tumahayo farxi fiska iyo ilka casa sidoo kale Canada iyo maxalada North America saas ugu wareegayo oo showyadooda loo dhigayo showyo kala kacsan heeso isbuuciye kasta soo duubayo media ka shidan dhalinta Soomaaliyeed si waqti la qaadanayaan hawshooda wataan adiga maxaa ka reebay maxaa ka dhigay micer ina mic u soo qaadato qof walba oo maanta social media ka soo hadlo maxaa sabab u ah farxi kabayre waxa loo qaatay riwaayadihii horta riwaayadihii maxaa la ila jireysay Maxamed Barastamol iyo ayada iyo dalmaryare iyo iska dhaafeen oo Maxamed Barastamol baa Soomaaliya imaaday oo musalsalo sameeyay dhalinyaro yar yar oo firfircoon ayuu musalsalo iyo filimo la sameeyay maadaama uu director ama film sameeyo Soomaaliyeed actorna uu yahay Maxamed Barastamol waxa ku leenahay bal xoogaa America dhinaca dib u fiiriyo farxi kabayre soo qabo oo riwaayad ayadana maxaa la waayay nolosheena lamida u sameebal wax ay ku mashquusho u samee farxi kabayre dadka qaar waxay soo sheegayaan in waxaano dhibaato ah iyo waxaano stress iyo qababac iyo ruux walba maanta faraxsan ee faraha la gasho oo fanaaniintii ay ka dhaxbilowdo oo dadkii caanka ahaa oo isku dhawaayeen ay ka dhaxbilowdo waxaano dhan ay u sameynaysaa waxay tahay in dhacay stresskaas oo ku saabsan in reegtay bariyaha la'aan ay ku dhacday wax ay ku mashquusho ama reel ama family aysan lahayn markii laga soo tago fanaaniintii kalena noloshooda ay ku mashquulsan yihiin ayadoo markii dadka qaar baa waxay soo jeedinayaan in nin la'aan iyo reer la'aantaas daraadeed hayso ay u geynayso in maanta ruux walba ay aflagaadeyso wax walba ay isku kala kiciso dhufo ka dhaqaaq ay noqoto ayada dhanba qof soo taagan laga nisan la yahay dadkiina qudhuunta u wada gashay ay tahay bal muuqaalkan godob iyo xarash ayaa ku galiyaa sideedaba badda markay kacsan tahay dadka Soomaali maryoole ay dhaas siyaasadda isku haystaan badda markay kacsan tahay lama dhex cararo waliba marka dool tahay waxoogaa yar ashisheeye tahay lama dhex cararo waligaa dhex cararin jacad adduunkay kugu dhijiyayaan ayagoo gacmaha haysta arkay ayagoo gacmaha haysto arkay waa iska kaaxigaan waa isdaldaleen waa isku degaan soo maxaa adiga maxaa be smart si fanaaniinta kale Hoda Cabdiraxmaan iyo Mursal iyo ma arkino Hoda Cabdiraxmaan iyo Mursal iyo ma arkino smart loo yahay free way baashalo yaan saaxib meesha rabaan ka heesaya laan dheerayaan
fanaaniin kale ayay soo xaxaganaysaa oo meesha ay kusoo daraysaa Hodan Cabdiraxmaan iyo ninkeeda iyo ayay galaafanaysaa oo waxyaabo kale ay rabtaa inay ka sheegto maxaa la durduraysaa macnaha hadda ka horna Cabdiraxmaan lafteeda way isdagaaleen oo Joker ayadana way isdagaaleen hadda ka hor ilkaacsi heshiisiyay haddana way soo laba kaclaysay qof walba waxay rabtaa inay durdurto reer walba faraxsan ama fanaaniin ama dad caan ah oo isqabo inay isku dirto haddana waxay rabtaa inay ka dhaxbilowdo Cabdiraxmaan iyo ninkeeda inay ka dhaxbilowdo ay farxii kaba yare Soomaaliyay noocaas ay isku bedeshay waxa fiicneed in ay waxan ka weynaato qof weyn maadaama ay tahay fanaaniinta kale qaarkood aad u fara badan ay ka da'weyntahay da'adii la dhawaaxtaa in maanta ay dhalinta isku keento fanaaniinta cusub ay soo dhaweyso fanaaniintii hore ee waaweynaayo legendary-ga ahaa ay iskuuloodka ahaayeen ay showyo la qabsato dibadaha ay u dhoofto meel walba ay marto Soomaaliya ay aado Nairobi ay tagto Melbourne iyo maxalla Australia iyo North America ay wareegto oo fanaanad la jecel yahay oo dadka isku soo dhaweyso oo dadkii is jeclaysiisa la rabay ayaa waxay sameynaysaa inay dadkii si kala furfurto ruux walba caan ah ee maagto mic ay qaadato baraha bulshada ay soo fadhiisato ay isku bedeshay waxaasna waa wax laga fiican yahay farxii kaba yare wax aan ka filaynayna ma aha wax maanta ay hormuud noogu noqon karto haddii ay fanka Soomaaliyeed ku jirtana ma aha fanka Soomaaliyeed haddii ay ku sii jirtana ceeb un bay kula sii jiraysaa haddii ay san ku sii socoto marka waxaan leenahay inta goor tahay farxii kaba yaro isdaba qabo wax aan ku mashquulsho horta reedso waxyaabahan ka ilaalin lahaa oo iskala dhaafileed iyo dhiiqooyinkana ooga bixileed fanaanad weyn baa tahay sharaf iyo karaama leedahay waanu ku jecelnahay laakiin waayadan dambe in aad qof walba faraha la gasho hadda lama dhigi karo waa laga khaldan yahay sababtoo ah qof walba ee is hayaan ayadun baa maagta hadda nimcaan ilaac oo iska aamusan oo duurkiisa iskaga jiro ayay maagtay oo wadankii xataa ka maqan oo meelaha iska jiro oo walba meel tagahayo oo ay u fadhido yay haddana ka daba qaadatay yaa xigi doona yaa next ah farxii kaba yare runta ha loo sheego muuqaalka hadduu kusoo gaaro fadlan sii sheer garee oo farxii kaba yare u geey waxaa ku tiraahdaa riwaayadihii maxamed barastamolna commentiga ugu qora maxamed barastamolow maraykanka intaa aado farxii kaba yare iyo tiimkeedii ku casuum oo riwaayad cusub ama musalsal cusub u sameey sida kuwa xamar ah ooga wadaba الله ما شيء طولنا اللي قاعد سومايا انت اقول لك حرين ما جرت إلى هذا حقك سنت أرجع مع هذا إسكاله أولودا إسكاله إلى هذا سهنوني إلى هذا سهنوني وضوحك سعدان إلهي حال كذا أجيها شيخ واكسا أيقو دواء فيديو واكنا شرجرة إد إفنك وهنونين لبدا نقف إلى حال كذا لا هي أنها ما يكاد بكر ما هذا فيلم حد محاني اللي يقطع أنا روايات لا ما هي صح ونحن كشيء يا ما اخذها muuqaalka hadduu kusoo gaaro fadlan sii sheer garay YouTube kana subscribe noo saar waana mahadsantihiin